بسم الله الرحمن الرحيم مسيرة بربوريان دحي gurigana waxa burburiyay culays oo waalidkii ka yimid uu ku burburay guri saddexaad waxaan rabaa inaan idin sheego marka oo burburiyay gabdha kale ka aqli badiyeen ma maqli jirteen gabdhan kale ka aqli badiyay gabadhan marka waa Soomaaliya joogi jireen labo nin iyo naagtiisa dad wax bartay jaamaca ka soo baxay isjeclaaday ayagoo soo wada socday Yurub soo galeen xataa tahriibku way soo galeen dad wax bartay ayagoo wada socday Yurub ku soo galeen gabadhu waxay tahay marka waxa lahayd aruuraan lahaay laba aruur saddex aruuraan lahaay gabadha markii iimaan jiray markii iimaadaan saddex gabar ay iimaaday tiri waa dir Soomaaliya waa soo dhaweeyay markaas waxay ugu dhahnaa guriga nadiif markaas guriga museeyga ma ku hagaajiyay museey iidan ma aqoon ana xataa mar dhawaan bartay museey ninkii la dhaho markaas tiri museey maxaa waay markaas ninka ma hagaajiyay waxay tiri kelmadaas maalintii ugu dhahay maalintii koobaad runtii waa dhibsaday tiri gabadha marti oo hadalkaas ku hadlay markaas waxaan ku dheetirmay ninkii banaanka soo shaqeynay guriga aniga hagaagsaday asin banaanka unaga soo shaqeynay almuhim gabdhihi waa gabdha ayaga shaqo la'aan waaye ku soo noqnoqdeen hadalka markaas waa lagu leeyahay ma quusanayn gabadha markuu waxay tiri haddaan baroobeeyo ka waran maxaa sameeyay dhehayso haddaan baroobeeyo ka waran waxay tiri ninka waxaan go'aansaday marka ninkii inaan baroobeeyo oo aan dhaho niyo waxaan rabaa inay caawisid hadduu maya dhihi lahaa cudurdaarkii aan dhihi lahaa waa sii diyaarsaday tiri hadduu maya dhihi lahaa waa yimid markaa waxaan leeyahay xoogo maanta waxaan xanuunsanahay jikada haraba inay la geshid waxaan sugay inuu maya dhoo isla markiina cudur raali gelin diyaariyay ahayd hayuu dhahay tiri isla markii uu baxay jikada uu galay alaabtii uu dhaqay waxay tiri alaabtii uu dhaqay waa fiir ana asaga dhaqan fiicneed alaabtii nadiif waa nuuraysa حانيت والله قبله وحي شيء رمب وايبه استفتك ود ماشي أسيكو باللاوته واسو ودي مركور وحيد معاون كرتا وحنون سنة مركز دام وحيسو قارت إلى حد وحيسو قارت هي بالأرنتا الصمي كذب وحيسو قارت مركز قبدي والله وحيت الشيخ وبينكم مشيئة كلمة دي استعمال شيء سريرت لقوا في قولك فريرت سريرتك كسو بالله ويتري وانكو صيحنا إلى الباب كلاقب حيتري هل وحكم قبل جرين subax uu shaqeynaa shaqada markuu ku yimaado asaa hagaajinaa cuntada asiga karinaa talaajadan soo baxsana oo kuleysana intaas waxa dhaaftay waxaan bilaabay markii aan baxo saddexdii gabar leewaya saddexdii gabar aan israaciinaa habeenkii markuu shaqada soo galo waa baxa waa labisana banaankaan tageynaa waa shaahan soo cabeynaa markii ina isqabo waxaan dhakaale adi ma waalneed mise waa fiyoobeen waxay u tiri runtii waa waalnaaytay laakiin waxaan isu haystinaa fiyooba haddaan ogaaday markaas inaan waalnaa لكن waxaan soo istinaafiyay laana tacadigi sameeyay waxyaalaha ii sheegtay maalmaha kamid markuu waxay tiri waa la bistay waxaan rabay inaan baxo ilmihiisa laga tagaa shaqo ka yimid miskiinka taabaan waay gurigu yimid ilmaasi hayla leh intee u socotay hadii shaqo u socdo xataa fine ama cunto soo qabalat okay laakiin shaahan soo qabaa okay hal maalin gabadha fasax way qaadan kartaa okay laakiin in laga dhigo waxaan routine laga dhigo markaas wuxuu inaan la bistay wuxuu intee u socotay ugu dhahay tiri markaas waxaan dhahay maxaa kaaga galay okay oo aamusay kelmada labaad wuxuu yiri tiri okay way hadaa bixaysid gabar la qabo marwa tahay kelmad marwa xataa ma aqoon iidan ka bartay marwa magaca waa qaan marka marwa gabar la qabo ahaan marwa tahay hadaa bixays ala laqal waxa ku baxday libaas oo ixtiraam ku baxada fiir korkaaga waa loo jeedaa yani marwa ku xirantahay laakiin waa kugu dhagantahay gacmanka ay garbaha caadi ah loogu jeedaa uma jawaabinay talabaabkan qabku siiyay waa baxay maalmo kadib asiga rabay inuu baxo inta u socotaan ku dheeyay wuxuu yiri asxaabtay oo baxa ma bixays ilmaha yaaga tagaysa yaa hayna wuu soo fariistay dharkii iska bedel wuu soo fariistay wuxuu ugu yiri tiri marka hadal ugu yiri hebloy maxaasan igu galaysa maxaan ka sameeyay inaan ku jeclahay oo aan rabin inaan ku furo miyaa og tahay maxaasan igu galaysa ana waxay tiri khalaas kelmadii meeshii caloolji aan oo naxariis ka qaadi lahaa waxaan ba ka sii qaaday marka xoog aan ku yeeshtay tiri inuu jecel yahay uu sarabin inuu furan waa helay waxa helay marka power kala hay maalis nafsi tariiqa maalmaha ka sidoo kale waa la bistay waxaan ku dhaaytay oo inta u socotay waa fiiriyay tiri uma jawaabin wallahi jawaab xataa uu qoori waay markaas wuxuu tiri way hadaa bixays ala qal
isxishmeey oo si fiican u bax albaabkan ku xir waa dhaqaaqay xoogo saacooyina maqlay waa soo noqday albaabkiian garaaca wax furaay ma lahan waa garaaca wax furaay ma lahan diriska marka dambe ku diriska ay soo baxay oo heblo waa ninkaaga uu baxay furihiina waa kan caruurtina anu wanaaga tagay marka arkay waxay tii dhiiga bay uu kacaybo waxaan go'aansan ninkan caaw markuu soo galo inay jarjaro xanaagsan saasuu sameeyso maani anoo isla hadlay xanaagsan uma guriga soo galay gurigiina aada soo ilmihi waa dharka xijaabkan iska dhigay meeshaan tagay miiska saanta uu fariisanay warqada saaran warqadii aan soo qaaday anigoo hebel waa ku furay waxay tiri wallaahi riya miya run miya waa rumaysa waa istaagay xijaab ima saarno albaabkii aan furay banaankaan baxa dhaxanaa jirto cunugeyga soo hooyo yuna weeri xijaab ma wadatid hooyo xijaab ma wadatid banaankan waa orday saa noqday waa garan waa cunugii ay soo qabtay waa soo noqday xijaab yara xirtay anina waxaan samaynaa ma ogi soo samtaan hadduu qofka naxo waxaa samaynaysaa ma ogid waa adina waa isku dadarsamaysaa ilmihiina ka tago hooyo anaaga tegaysa waa soo noqday diriskan ku gargaraacay miya hayn kartaa ilmiha sida aga tegay waxaan ogay hal saaxibo magaalada hal saaxibo ku lahaa uu tegi jiray galabtii uu tegi jiray waxaan ogaaday marka ninkaas gurigiyaan tegay guriga banaankiisa noo maray codkiisa maqlay tiri waa ku gargaraacay ninkii guriga laga furay hay maxaarta hebel ma aqaan ordayga tago waa soo galay wuxuu yiri naag la qabatay guriga ka baxdi kale wala booliisan kugu yeera waa soo baxay ninkii text message aan u diraa risaalo u qoraa abadan ma qabanaa soo jawaaba wuu aqrina ma ka soo jawaaba waa waca ma qabanaa ay soo wacday markaas qisada markii ii sheegaysa markaas waay marka qisada markii ii sheegaysa markaas waa ido ooyinaysa markaas ii tiri arrinta sheekhu ninkii kala tagnay oo saani waxaan rabaa inaan isku noqono ani waa gabar markii la furo xoogo oo xanaagta arki jirtay gabadha iyada soo wacday ido ooyinayso oo rabta ninkii waa rabaa ay dhehayso marka waxaan dhahay okay ninka waa rabtaa waa okay maxaa dhacay markaas waa sheekhu wax yar waa iskhilaafnay qisada marka dambe gadaal iga sheegay waa iskhilaafnay okay ninka nambarkiisa soo dir ninkan wacay ninkiiga muusan qabanin iidan ku celiyay marka ninkiiga ma qabanin waa ooynaysaa waxaan dhahay ooyintaada wax ka badane furitaanka maxaa ka weyn jiray ii sheeg qisadan hadda idiin sheegay marka ii sheegtay markaas waxaan ku dhahay qof aqli lama ahayd misqof fiyooba ahayd waxay tiri may waa waalnay laakiin waxaan soo haystay inaan fiyooba hadda waa ku baryaa ninka soo celi anoo la hadlaayo oo si wada hadlaynaa ninkiis leenkii soo galay marka waxaan ku dhahay hebelaa soo galay ka qaba telefoonku ugu damisay ninkii aan la hadlay sheekhu adimi aha khayr allah ku siiyo waa sheekh Axmed waa ku jeclahay marka aadaan number fuucitaanka aadaan ugu farxay okay marka marka salaamiya mise waa wax arba kala jirto marka waxaan ku dhahay salaana way tahay arrin kalena waa jirto wuxuu yiri marka salaanta waa ka qaba ilaahay khayr ku siiyo inaan ku soo inaan maanta inaan isoo wacday anay bisharaf ii tahay laakiin hal waxaan ka codsanaa ilaahayga aan dhuufka abuuriyaan oo ka abuuran kugu dhaariyay ilaahayga cirkaan dhulkan abuuran kugu dhaariyay yimiin markuu xiriir wuxuu yiri heblo magaceeda ha igu soo qaadin furitaankeeda ha igu soo qaadin marka waxaan okay waayahay waxa sameeysan marka ila xad marka okay waayahay kugu soo qaaday laakiin open ha ka dhigin one week ay igu soo week qabaan kugu soo qaaday ballan waa week ama maalmo qabsa ama bil qabsa bishii qabsaday bil hay igu soo qaaday المهم gabadhiyan waxaan dhahay ninkaas waxaan dhahay waa nin aan meel qatar jooga hadda kuure waxaan ku waaninaa risaalooyinkaas oo qorqor cudurdaarka adigina ilaahay bari inuu qalbigiisa ku soo jeedo ninkan waxaan dhahay qofka markuu ka bato pressure ka bato hadda baloonka da soo qaad afuuftid waxa dhaca waa qarxaas ma haduu qarxaliso ma keeni karo ninka waxaan culays badan ka saar waxa xad ku gaar marka oo dhinacaas u gaar marka waxaan ka codsanaa ducadana badi inuu qalbigiisa ilaahay ku soo jeediyo ninkii bil kadib المهم waa la had si kasta waa la hadli waa keeni waa inuu waxaan dhahay khalaas qalbiga ilaahay wax kaleedii haaya wax duco waayaan isku meel lama joogno marka intaas waay gabadhi marka bilooyin kadib ay soo wacday 6 bil sanad kadib ay soo wacday marka sheekhu heblo waay qisadii oo gabadhi miyahay maxaa wax ma soo cusboonaaday haa hay tiri ma taqaanay gabadhi saddexdii gabar aan ku sheegi jiray ha mid kamid ah ninkeyga aroos weeyay saddexdii gabar guriga ka burburiyeen ha okay waani cazuuntay birri dambana la aroos weeyay maxaan sameeyaa marka waxaan dhahay laba option haysataa inaadan tagin iyo inaad tagtid laakiin aad dhibaato sameeynin
waddan Yurub aad joogtahay haddaa siinayso xalaa caruurtaadana lagaa kaxaysto adigana lagu xiro haddaa iskontarooli kartid fine haddaa iskontarooli kale ha tegin اسبوع كده بيسوي حتى شيخ واسكونترولي waxaan go'aansan markii inaan tagin waxaan tagay waxaan ninkii wixii dhaqankiisa waa qaan subaxii 7 barku guriga ka bixi jiray shaqada suu aado waxaan go'aansaday markaa 7 maalimii 7 markay ka baxday kadib inaan gurigeeda kaligeed ugu tago aan go'aansaday waxaan fiiri markaa subaxii waa soo hormaray ninkii waa qaan waqtigu baxaayo meel oo baarkin kamid ah ku dhuntay sidii waqtiga caadiga 7 markii uu soo baxay baabuurkiisu uu fuulay wuu dhaqaaqay 5 minutes kala meesha taagnaay gabadhan guriga ku gargaraacay ahlan waa si fiican ay soo dhaweysay guriga nadiif markaas waxaan ku leeyahay gurigaadi ma hagaajin museyga ku hagaajiyay markaas inay qosasho waxay u tiray may xabiibti guriga ana hagaajiyay ninkiigana waxay tiri guri hagaajiso inuu hagaajiyo waa ka weyn yahay madaxu ii saaran yahay marka ciilno qabtaan waxaan dhahay maxaa kugu qasbaysaa inay u sameeysid wal waxay tiri ani wax ma kugu sameeyay shaytaankii oo kala waa أنا إسكا فرمان كودا هاي أنا شاكي نجاهد أديك أقول نينكاga هيسويسي هل wax kalan kugu daraa haytiri ninkaaga adiga ilmahaga ay jeclaysiinay tiri ma aqoon baninkaaga aniga markasta markaan dibka kale sameeyay jirtay wax kasta ninkeeda ku sameeys gabdhahan u sheegi jirtay iyo wuxuu ku sameeyay waxa isdheeytay nin saano kale naagtu si ugu dul qaadanay ma jooga waxaan ku duceeyay jirnay ninkaas kale Ilaahay siiyo ilmahaga markasta ii keentid aabaasaan noo sheegay aabaasaan baray um bay dhahaynay tiri ilaahu ninkaas oo kale oo aabasaan caruusaan oo kale uu noqon ilaahay saalaan dhihi jiray hal ka daran waa ku sheegay ninkaaga imuusan aqoon ana raadsaday aniga raadsaday oo aniga shukaansaday asaxta imuu shukaansanin walaal macaan waxa sameeysaa walaaltinimo aan wada haysano arintan marka la igu soo qaaday ninkeyga iyo familkeyga hadda adiga hayso ninkii gurigeena haystaan rabaa ninkan sheekadiis marka la igu soo qaadeen walaaltinimo dar guriga ma cunta cad sheekalaan ka sheekaysano laakiin bixitaankii oo banaanka u baxay iyo arimihii nin sheekadiisa ma jirto ku talagal ani gabar muslimada ahay waxaad muslimad noqotay miya gabar muslimada ahay xuquuqa liigu leeyahay ninkii xaqiisina ilaaliyo u baahanahay waxa sameeysaa khayran ku rajayna markaas gabadhii intaas igu tiriyaan dhahay marka waxaan dhahay ma rabinaan ku dhaw macsac kore kugu tahay ma rabinaan ku dhahan dhahay laakiin dhibaatada ku gaartay waa ka xumahay runtii laakiin waxa ay sabab u ahayd waaye dhibaatada ku gaartay marka khayr Allah ku siiyo wax ka fiican Allah kugu bedelo runtii qisadan waxay noqotay qisooyinka aan hilmaaminay noqotay saddexda qiso aan soo sheegnay tii koowaad maseera burburiyo guriga tan labaadna waxa culeys banaanka ka yimid tan saddexaadna waxa qiso banaanka dad banaan xoog ka soo saaraan marka gabar aqli leh inaan noqotid gurigaaga oo Ilaahay ku siiyay nicmo waaye nicmadaada hayso dad badana wallahi jooga meeqa qofood meeqa nin ayaa naag raadinayo oo la meeqa gabdho jooga nin raadinayso la waa buuxaan nicmo waaye guurka nicmo waa Ilaahay bixiyo qofka salaamo siiyo wallahi waxa arkaysaa nin waxaan garanaa Masri oo saaxiibana wallahi wuxuu isku darsaday dhaqaalo bangiyo ka shaqeeyo islaami guriyo leeyahay hadii la yiraahdo family inuu ka dhashtay hadii la yiraahdo qurux nin qurxan waay hadii la yiraahdo dhaqaale haysta ila yawmina hada 10 sano gabaru raadinaya waa la yahay waxana 10 sano markaas ma guursad maxamed allah maya 10 سنين صدن إلا بوه دمر ويانك ما 22 مكوذ بالله إلى هذا ولا قبل أساسه كل واجب أيانا إلى يسوق در قروح يدين يو فامل يسوق در لكن إلى هذا نصيب أنا مانع جورك النعمة واحد نعمة هذا إلهي كسيم الكحلو باهينا هي ست دالو باهي هي لبعتوني كان أكي إلى لست جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى هذه حفظيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة الله نافو كي وارد كان الله نافو آخر يفتنك وسرهن الله ينوافجيه أنت بكتا عذر كعبنا يسا رجي يد مريا عرور أهلية ومضردن الله عافيه عذر كعافي ماذا الله هو بدله عذر كعافي ماذا الله هو بدله ضد بدن بمراد له ومراد كود أون معصية هين إلهي ويدي السنة يا الله واقبله مراد كون معصية هين الله واقبله أنت رجع دمر دون يسا أوريه ونكسر حلال الله سيه أنت دمرك رج دون يسا يحاسنا نونكسر الله وقدره على الثعان الله سيه أنت أرساقدك كعبنا يسميت بركة إلهي هو كرديو أرساق الحلال أو بركة الله كو أرساقه أنت أبد لان كعبنا يسا أما أبدك كحم هذينا أبدنا الله سيه أبد كان الله هو هجاتيو أبد كان الله هو هجاتيو
dalkeenna iyo dowladnimadeenna intaba allah inoo barakeeyo kuwii diinta ku toosan ee ku hagaagsan ee waxay hayaanna oo aaya allah inaga dhigo cilmiga iyo cibaadada iyo camalfalka allah inoo sakhiro cilmi wanaagsan oo barakale qulubteenna allah u furo qur-aanka kariimkaana allah ina fahamsiiyo innaga iyo ubadkeennaba qur-aanka allah inoo furo cilmigana allah inoo furo cibaadadana allah inoo wanaajiyo caqiidadana allah inoo saxo kuwa diinta islaamka ku nool ee ku dhinta allah inaga dhigo waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo halkaynu ku soconnana ilaahay jannada ha ka dhigo cadaabkiisana allah inaga nabadgeliyo waalidkiina dhalay ee inagu tabcay hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba allah u dembi dhaaf ilaahay ha u dembi dhaaf innagana ubadkeenna kuwii aynuu ayno ee inoo soo duceeya allah ka dhigo ummadda islaamku meelay joogaanba dhibaatada allah ka dulqaado cadowgana allah uga heeliyo cisigana allah siiyo ilaahayna ilaahay ha isbarbar taago kuwa dhibaataysana cirkana huwada dhulkana goglada ilaahay ha u heeliyo nasrigiisa iyo guushiisana allah ayna siiyo waxaynu dareemaynaa inaynu ka diiqadoonaynana allah inaga dulqaado waxaynu haynaba dad iyo duunyo iyo diin iyo dal allah inoo barakeeyo arrintu badnaanta maaha waa barakada allah inoo barakeeyo aakhiriya iftiinkaba sida wanaagsan allah inagu soo ururiyo jannadiisana allah ina geeyo kuwa uu ka raali noqdo ee uu jannada ku farxaan allah inaga dhigo وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.